Nalena waraajicun nalena waraajicun gobolka awdal gaar ahaan jaamacadda camuud waxaa xalay lagu toogtay ibraahim cabdishakuur salaan oo nin askari ah uu ku toogtay halkaa jaamacadda camuud. sida la sheegayo iyo wax ka jira horta ma jiro. waxaa la yidhi calan soomaaliyeed buu sitaa. marka run laysku sheego wax calan oo soomaaliyeed uma sidan. sidiisaasuu iska ahaa, arday buu ahaa, kulliyadda caafimaadkuu dhiganayay. markaa sida ay dadku sheegayaan, horta waxaan leenahay dhammaan ehelkii uu ka baxay qaraabadii samiriye ibana ka siiyo, gaar ahaan ardaydii uu la dhiganayay jaamacadda camuud iyo gobolka awdal. aada iyo aad baa looga tacsadaynayaa. samir iyo iban allaha ka siiyo. halkaa uu ka baxayna ilaahay wax kheyr qabta ha ku bedelo. waxaan idin leeyahay asxaabtayda qaaliga ah, intaanan hadalkaa usii gudagelin, naxdinta leh, laygta, sheerta iyo kumatigaba go-aankiina ha ahaado. allahuma salli calaa maxamed. gobolka awdal gaar ahaan jaamacadda camuud xalay toole waxaa ka dhacay dil aada iyo aada u naxdin badan. dilka uu geystay askari kasoo jeeda sanaag. inanka yar oo la dilay oo gobolka kasoo jeeday sanaag lagu magacaabo, oo haa qolada la yidhaaho majeerteen. markaa waxaa sababaha laysla dhex marayay gobolka awdal, waxaa la sheegayay in laba kale ay dhaawac yihiin. waxba kama jiraan, waa been. annagaa soo cadaynay, xaqiiqadaan ogaanay. wax alle iyo wax kale oo dhaawaca amba dhakhtarka yaallaa ma jiro. horta waxaa la yidhaahaa mataqaanaaye meel saacaddu kugu kicisay kama habsaantid baa la yidhaha. ma aha in askarigu sharciyan au rasaas ku furo dad shiciba. markaa inankaa sida la sheegay ee xaqiiqada ee cad waxay tahay in au jaamacaddii au dhiganayay au mobile kaga soo tegay oo ku iloobay oo ku noqday dabadeed. ma ahayn qasri madaxtooye, ma ahayn meel dadka laga ilaalinayo, ma ahayn. waa jaamacadda dhan ee xidhan ee kuraasida iyo miiska buugga la duldhiganaya, ardaygu duldhiganaya au yaallo. markaa waxaan leenahay gaar ahaan gobolka awdal aada iyo aad baan nuuga xunnahay dilka halkaa ka dhacay isna ibraahim cabdishakuur. waxaan leenahay jannatu fardowsa allaha ku geeyo, dembigaagii allaha dhaafo. waxaan leenahay ehelkaagii iyo qaraabadaadii samir iyo iibaan buuxa kaamila allaha ka siiyo. dhallinyarta gobolka awdal marka runaantii laysku sheegayo aada iyo aad waa dhalinyaro qiimo badan, waa dhalinyaro aada iyo aada u firfircoon, waa dhalinyaro somaliland darada ood ku ogtihiin meel kastiba. marka nin sheegaya oo daahir calis la yidhaahaan malqayay caawa le laba kala dhaawaca oo dhakhtarka yaalla. waxaasi waxba kama jiraan weeyi. annagaa soo ogaanay xoogagaalka iyo runta alay ku salaysan tahay. annagaa soo ogaanay. waxaan leeyahay wax kale oo la dilay ma jirto oo inakaan ahayn. inakaan saacadiisa dhammaatay. horta waxaa la yidhi meesha xabaashaadu ku qodan tahay goor habeen ahayn galabna ahayn baa tegi. allaha u naxariistaan leenahay, naxariistii janno allaha ka waraabiyaan leenahay, samidiyeyba allaha ka siiyaan leenahay. dadkii uu ka baxay qoyska uu ka baxayba. talabaad calan au sitay oo la sheegayo oo dadku social media layskula marayaa jirta. wax calan au sitay ma jirto.